runtii hawsha maanta aan ku yeedhnay waxay ahayd waad ogeydeen in dhaweyd waxa buuq badan ka jiray hawl shaqo ah oo wasaaradda tan ay leedahay oo ah shirrabaadda badqabka gaadiidka runtii arrinta iyada ah waad ogeydeen shalayto baarlamaanka la geeyay baarlamaankuna go'aan ah inuu laalay buu soo saaray arrinta iyada ah waxa laga hadlayay hawsha ka dhaltay waxay takaaliifta oo qoliyaha baarlamaankuna u arkayeen iyagu inay soo marto ay ahayd annana aanu arkaynay inay service aanu qabanayno muqaabilkeedana in laga qaado dadka takaaliif ay tahay aanayna u baahnayn golaha baarlamaanka inay marto arrintaas iyadoo taagan tahay waxa dhacday in iyadana la sameeyey mooshin shalay golaha la keenay gudoomiyaha golaha wakiiladu hay'adii dowladda mid kamid ah hogaamiya guddigii dhaqaalaha isagoo aan dhageysan aan qaybin xeerkii la taliya sharci aanu dirin waqtigii xeeroosaadkooda qoray 24 saacadood aan siinin oo codgeliya arrinta iyada ah ayna sheegeen takaaliifta inay laaleen annagu ruuxan waanu qaracsanayn laakiin annagu ixtiraamayna hay'adaha sharciga laalista takaaliifta sida ay ahayd baanu qaadanay waxayna u dhaqan gelaysaa sida ay ahayd maanta wax takaaliif oo laga qaadi doono badqabka gaadiidku ma jiri doonto waxaanu isleenahay gudoomiyaha haddii uu isagu gafay oo uu mari kari waayey sharcigii ladhi baa ku taagan oo meelo kale hadda culays ka haystaa marka annagu odayga ardaaga hor fadhiya inaanu nagu marda reebanin aanu sidaa ay tahay arrinta iyada ah aanu u qaadano u aqbalno takaaliifta ay ka qayliyaana sidii loo joojiyay baanu u joojinay waxaanu nin walba faraynaa inuu qaato oo maro kuwa jooga dalkii hore u joogayna ee dhowr iyo 60 kunana la siin maayo gaadhana la siin maayo wadamaristii loona ogolan maayo wadada inuu fuulo marka hawshaas ay bilaabanto baaristiisana waxa lagu sameeyaa xarunta wasaaradda Hargeysa